النبي عليه الصلاة والسلام وحاوت المامية أن إيمانكو إنو يهي دورية تضباطا أما دورية لحدا قيبات وحاو رأيو النبي يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد ويادو هدي أنا يصحين دي أعماشا كالوردمي وحبك مجران marka iyadoo saxdaaba wixii kale tirsiis uu noqonaya taas oo sarreeyay buu nabigu tilmaamay waxa ugu hoosaysa buu nabigu tilmaamay iimaankaasi imaatatu lada aan tariiq jidka oo wixii dhibaya laga duwo ama dhagax noqdo qodax noqdo xashiish noqdo wixii bini aadam dhibaya oo jidka laga duwo idan inaynu jidkeena nadiifsanaa waa wax tilmaamaya iimaankeena inta uu leeyahay waa wax sheegaya dadnimadeena sida awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbu wuxuu ku tilmaamayaa inuu janno gelayo ama dembigiisa la dhaafay xadiidku labada arey mid buu ahaa waxaanu ku helay buu nabigu leeyahay qodax uu laan ka jaray yacni laan qodax wadato waddada ku soo baxday oo dadka dhibi lahayd oo ka jaray dadka waxa ugu khayr badan buu nabigu yidhi anfacahum linnaas dadka anfaca ugu khayr badan yani Soomaalidu inta badan amalka khayriga hadduu qofku israa amal khayriga qabo inta badan wuxuu yaqaanaa inuu masaajid dhiso ama inuu quraan akhristo ama inuu salaad tukado sax weeyaan intaasiba waa cibaado ilaahay loogu dhawaado laakiin waxa cibaado ilaahay loogu dhawaado kala ah dadka waxtarkiisa ha noqoto qofka jeysano wuxuu cuna la siiyay qof haraadan oo la waraabiyay qof dhibka la haysato loo fudaydiyay qof deegaana oo deegaankiisii loo hagaajiyay wax kasta oo anfac bini aadam u yeesha ayaa iyaguna ka mid ah cibaadaadka ugu waaweyn saadaradeed buu nabigu wuxuu tilmaamayaa dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh idan aniga dardaankayga waa hal mid oo wuxuu yahay waxaynu qabanayno inuu ilaahay ugu dhawaano adduunka waa wax kooban laakiin meesha u baahan inaynu shaqo badan gashana waa aakhiradeenii adduunka ninka u badan waxa laga yaabaa 60 sano 70 sano iyo wax la mid ah inuu joogo laakiin waxay naga damaysaa nolol infinity nolol aan dhammaad lahayn nolosha aan dhammaadka lahayn waxa wax ka tara waa waxaynu hadda qabanno waa laga yaabaa mushahar yar ama waxaan aad u buurayn inuu halka ka soo galo laakiin aanu kaasi noqon qasdiga inuu shaqeynayna inuu noqdo waxaad ilaahay ku raali gelinayso idan taasa kaaga manfac badan inaad ilaahay raali geliso ama aakhiradaada inaad u qabsato way amalka wuxuu da islaaxa marka ilaahay dartii loo qabanayo qofka ilaahay dartii u qabanayaana ma daalo qofka wax kale wuxuu qabanaya yani haddii aad isleedahay madaxdu ha ku amaanto wax laga yaabaa markay maqan yihiinna dee inaad iska fadhido markay joogaanna inaad digdiglayso waxaa laga yaabaa haddii aad is leedahay lacag ku hel cidda lacagta bixinaysa markay joogto inaad si fiican u shaqayso ciddaan lacagta bixinayna markaanay jooginna inaad wax badan qabanin laakiin haddaad is leedahay janno ku hel waxaad ogtahay inaad kharash ka badan helayso saa daraaddeed bini aadamku kuuma muuqdo ilaahay baa kuu muuqda ilaahayna waxaad ogtahay inuu ku arkayo mar haddaad bini aadamba qiimaynaynin waxaad qiimaynaysaa uu yahay rabbiga inaad raalli geliso camal kastoo aad qabanayso si fiican baad u qabanaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay war midkiin hadduu shaqo qabanayo ha itqaaniya buu nebigu yidhi ha sugo sida u fiican aad u qaban karto u qabo waxba adigu ha reebin waayo waxaad rajaynaysaa wax ka weyn in ilaahay kugu siiyo marka eraygaan idin leeyahay waxa weeyaanuun dawladda hoose kollayba mushaharkeedu waa iska yariyey Soomaali oo dhan waxay bixisaa waa iska yariyeen laakiin kollayba saacadaad meesha joogto wax muuqda qabo saacadaad sileeda kollayba saacada waad joogtaa saacadaad meesha joogto adduun badan oo halkan jooga haddaad ku weyday adduun badan oo aakhira jira ku shaqayso